السلام عليكم صاحبيال soo dhawaad markale halkani waa Sim Groups anigu waan hay Cabdi Maxamed صاحبيال muuqaalkani maanta waxaynu uga hadli doonaa sidee loo sameeyaa Instagram account private yani sameeyman laakiin sidee loo dhigaa account-kaaga hadii aad hore u haystay private maanta waxaan rabnaa account-keena inaan ka dhigno private yani si dadku aynu u arkin sawiraanteena ama muuqaaladeena cashkaas yar maanta inaan baro ee ku soo dhawaado muuqaalka hadaba aynu galno Instagram-ka si aan tusaale idin siiyo Instagram-ka markaad gasho xagan search-ga waxaad ku qori kartaa tusaalan inaan Soomaaliyeed baan ku qorayaa tusaalan oo kale Liban Pro ayaa yiraahdaa wiilkan then isaga markaan ku dhifto you see now hadda marka waxaad aragtaa in uu yahay account-kani this account is private oo kuleeyahay yani account-kani waa uu qarsan yahay yani waa uu hargeysan yahay waa private marka waxaan rabaa maanta in account-kaaga sidaas kale aan kugu fahansiiyo inaad ka dhigan karto yani hadda waxaad aragtaa account-kan waa private habkaas oo kale ayaad uga dhiganaysaa insha Allah ayaan ku bari doonaa muuqaalkan si daawo waya marka ugu horeysa aad rabtana account-kaaga private ka dhigato waxaad ku dhufanaysaa icon-ka sawirkaaga aad ku dhufanaysaa then sidan adiga u jooga Instagram-kaaga oo aad ugu dhex jira ayaa wax ku dhufanaysaa saddexda dhibcood ama saddexdaas ulood geedka sare waa in calaamadin doona geedka sare aad ku dhufan doontaa markaad ku dhufato halkan waxaad ka doonaysaa silin halkaas aan idin calaamadeeyay marka aad ku dhufato waxaad ka dooranaysaa privacy halka ku qoran tahay dooranaysaa privacy yani halkan aan idin calaamadeeyay aad ka dooranaysaa then halkan kale aan idin calaamadeeyay aan dooranaysaa ku qoran tahay private account halkaas waxaad aragtaa saaxiibayaal waxaad aragtaan halkaas in ku qoran tahay private account halkaas ayaan on dhahaynaa then wuxuu ku leeyahay switch to private u bedel private account-kaaga then account-kayga hadda waa private oo yani meeshu waxa ay tahay on ay tahay then marka hadda anigu kaliya ayaa arkara hadii aan soo boqdo bis aniga bis ayaa arkara laakiin qof haduu yani raadiyo account-kayga then Cabdi Nasiib ku qoro halkaas ka bacdi uu ku dhufto wuxuu arkayaa sidii inankii kale yani wuxuu noqonayaa private sidaas ayuu private uga dhigay laakiin anigu ma doonayo in yani account-kayga private ka dhigto oo waxaan doonayaa almost in yani asxaabteedu ay arki karayaan ama qof kasta yani inuu yani iska arki karo marka uma doonayo aniga inaan private ka dhigto yani qofkii jecel markaas sidaas ugu faa'iideysan karaa mana qurux badno inaad yani account-kaaga private ka dhigto waayo yani ma jiraan wax yani markaas private sabab looga dhigaa okay marka aniga ku noqonayaa an private ayaan oranaya okay marka sida aad iskaga qaadi lahayd private-ka hadii aad yani markaan aad u baahnayn ku noqo saddexdii orood ka dooro setting ka dooro privacy halka ku dhufanay then iyada off kale marka calaamadaas ku dhufo then wax kale marka switch to public u bedel public okay sidaas ayaad ugu bedeshay public oo calaamadii ahayd waad iska xirtay hadaba saaxiibayaal sidaas ayaad uga faa'iideysan kartaa muuqaalkan gaaban waxaan filayaa inaad ka heshay muuqaalkan hadii aad ka heshay like share sidoo kale hadii aad nagu cusubta subscribe hadii aad ka mid tahay saacad hore joogtay waa mahadsantahay ku oranaya muuqaalkan ka dhiib fikirkaaga oo ka soo bixi yani wixii aragtidaada ah ama sida aad u aragto okay kan saaxiibayaal waxa aragtaa inuu yahay Instagram-kayga ama account-kayga rasmiga ah marka hadii aadan iga soo follow gareen please iga soo follow garee halkaas aynu ku saaxiibno ka mid noqo asxaabteeda oo halkani aynu ku saaxiibno waa Cabdi Nasiib Maxamed oo kale muuqaalkan inta aynu ku kulmi doono salaama